kusoo dhawaada shabakada xushmad TV fadlan haddii aad ku cusubtahay janalkaasi subscribe saar muuqaalka like saar ciidamada Puntland ayaa si rasmi ah waxay la wareegeen gacan ku haynta xarunta baarlamaanka Puntland kadib israasayn xalay ka dhaxday ee ku dhaxmartay ayaka iyo ilaalada gudoomiyaha baarlamaanka. ciidamada Puntland ayaa xaruntaasi kala wareegay ciidan u daacad ah gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiim Maxamed Axmed oo gacanta ku hayay dhismahaasi. labada dhinac ayuu abisnimadi xalay isku hor imaad kulul ku dhaxmaray afafka hore ee xarunta baarlamaanka Puntland kadib markii ay weerar ku soo qaadeen ciidan laga soo diray aqalka madaxtooyada Puntland uu soo adeegsaday madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dani. ciidamada hore ayuu ugu sugnaa dhismahaasi oo iskaga baxay ayaa suurtagelisay inay kala wareegaan ciidamada ka yimid qasriga loogu arrimiyo Puntland. Garowe ayaa waxaa ka taagan khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo Cabdixakiim Maxamed Axmed gudoomiyaha baarlamaanka Puntland. iska hor imaadka xalay ka dhacay magaalada waxaa ku dhintay ilaa iyo 3 qof, 2 askari iyo nin ganacsato ka tirsan dowladda goboleedka Puntland. wixii ku soo kordha waxaa kala socon doontaan wararka Puntland iyo wararka caalamka xushmad TV. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar muuqaalka like saar commentiga hoos inoogu soo qoro. waad ku mahadsantihiin daawashada aad daawateen wararkeena.